qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada madaxda gobolka Saraare ee Caynaba ayaa eedamaya dhalinyaro ku dusha uga tuuray dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo oo ay sheegeen inay gabi ahaanba ka gaabiyeen shaqadii ay u hayeen dhalinyarada Soomaaliland taasina ay keentay in dhalinyaradu isku daadiyaan badweynta ay micin bidaan taariib waxayna dhalinyarada si buuxda u taageereen dhalinyarada gobolka Sanaag ee ka dhiiriyay wax qabad la'aanta Sooyo ee gobolada bariga Soomaaliland dhalinyarada gobolka Saraare ayaa sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay gabi ahaanba kala dirto mas'uuliyiinta ugu sarreeyay kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan halkan ka cambaaraynaa si weyn uga cambaaraynaa dalada magaca dhalinyarada ku shaqaysatay Soomaaliland ka howlgasho ee la dhaho Sooyo waxa weeyaan daladaas ma aha dalad dhalinyarada wax garla mana aha dalad dhalinyaradu u siman tahay kaliya waxay ka shaqaysaa hal meel kaliya dhalinyarada waa la yaqaan meesha ay ka shaqaysana waxa weeyaan si weyn baan u cambaaraynaa way gabtaa hawshii dhalinyarada ee bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaradii waa ta halkaas ku leeatay ee baroordiiqda loogu sameeyay midowga Yurub sameeyo halka hatta tacsiib ma dirin tacsiib aniga Maxamed Salmaan Maxamed kuna nool dhalinyarada ka mid ah gobolka Saraare gaar ahaan magaalada Caynaba waxaan halkan cambaaray balaaran ugu soo jeedinaya ururka la magac baxay Sooyo ee ku qalaabta magaca dhalinyarada Soomaaliland annaguna haddaan nahay gobolka Saraare waan ma aqoonsan haday laakiin ku qaraabanayaan guri hoostii oo ay leeyihiin annaga dhalinyarada Soomaaliland matala waxaan leeyahay wax alaal wax ka jira ma jiraan waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliland way midoobi doontaa way suuman doontaa ururna ku midoobi doontaa haddii aanay sida ay Sooyo wado waan wax ka bedelin dhalinyarada gobolka Saraare haddaan nahay dhalinyarada gobolka Saraare waxaan cambaaraynaa hoggaanka sare ee dalada Sooyo ee Siyaad oo wax ka bedelay dalada Sooyo marka aanu eegno Sooyo siday u dhisan tahay waxaan ay u dhisan tahay inay u dheelisan tahay dhanka galbeedka una badan tahay waayo ururadayadii gobolka Saraare ururo badan oo dalada Sooyo ku jira ayaan ka diwaan gashanayn sida awgeed waxaanu leenahay hoggaanka sare ee Sooyo aniga Farxaan Maxamed Jaamac kana mid ah dhalinyarada gobolka Saraare waxaan baaq dheer oo cod u diraya dhalinyarada xalay ka hadlaysay gobolka Sanaag iyo dhalinyarada gobolada bari dhalinyarada xalay ka hadlaysay gobolka Sanaag aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waana soo dhaweynaynaa mowqif qofka ay istaageen ay ka qaateen dalada Sooyo hadii ay la helo dhalinyaro midaysan oo gobolada bariya waa laga maarmi karaa waa dalad ku adeegata magaca dhalinyarada waxna uma qabato dhalinyarada maalin walba waxay madaxda dalka ee uu sareeyay madaxweynuhu hadda tahay golaha wasiirada labada gol qaran hay'adaha caalamiga kuwan caalamiga ahayn waxay kaga qaataan mashaariicdana waxay ku qaataan dhalinyarada sootan badaha ku daadatay ee camal la'aanta ragaadisay ee shaqo la'aanta ragaadisay ee waxbarasho la'aanta badankooda ragaadisay mid kale waa inay sameystaan dalad u gaara gobolada bari waana soo dhaweynaa si degdeg ah loo abaabulo daladu gooniyo gobolada bari daladu gooniyo haddii aan nahay dhalinyarada gobolada bariga waanu ka soo horjeednaa arrinta wax naga soo gaadhay oo ay dhalinyarada Soomaaliland soo gaarsiisana ma jiraan mashaariicda ay qaadataana waxaan leenahay arrinka dalada Soomaaliya waanu ka soo horjeednaa waanu cambaaraynaa annagu saacada laga bilaabo dalada Soomaaliland nama matasho xuquuqdeeda gaar baan u doonaynaa waxaan sameeynaa dalad kale oo gobolada bariga sidii Farxaan Maxamed Jaamac sheegay dhalinyaradii xalay Sanaag ka hadlaysana waanu ku taageersanaa waxaanu leenahay qodobka ay kaga soo horjeedaan dalada Soomaaliya war mowqifka waan idinku raacsanahay waanu idinku taageersanaa Salmaan Ilmi Saciid fogaan araga xorta Star TV magaalada madaxda gobolka Saraare Caynaba.